تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال كسر دوادا channelka صح عقيدة هذا ولا ليال موقتين إن يجران aayado badan oo wadaadadu si qalada inoogu fasirayaan ama hadday doonaanba si qalloocan inoogu fasirayaan si aanad u ogaan macnaha aayadda runta ah ee ay aayaddu ku socoto. aayadahaas oo ay rabaan inay manhajka ay aaminsan yihiin ama ay taabacsan yihiin inay ku saxaan oo aayadda asalkeedii macnaheedii bedelayaan si ay manhajkooda iyo madhabkooda ay ula mid noqoto oo ay ula heshiiso. daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii toddobaadlaha ee aad uga barateen Soomaali American TV aan ka soo gudbin jirnay su'aalaha iyo jawaabaha diiniga oo aalaaba aan su'aalahaasi weydiino Dr. Sheikh Ahmed Yamani oo garabkayga midig fadhiya. waxaan ku bilaabi doonaa gabadh ku weydiisay ama inoo soo weydiisay su'aasha ah waxa jirtay in soonkii hore ama uu dhaafay ama aan gudan waayay si kasta waxa ku dhacdo kii kalena uu soo socdaa. marka gabadhaas waxay leedahay sidee xaal noqonaya sidee yeela qof kastoo muslim waxa waajibka inuu soomo haduu ilaahay cudurdaar qofka siiyay oo inuu afuro waxa lagu talagalay 12 bilood gudaheeda inuu ku afuro inuu ku gudaa lagu talagalay. qofka 12 bilood uu ku gudi waayo laba mid waaye qof cudurdaarkii uu ku furay weli lahaa iyo qof aan cudurdaarkii lahayn oo ka saagatay. haduu cudurdaarkii lahaa waqti uu cudurdaarka baxun buu gudaa laakiin qofka haduu awoodi inuu gudo uu gudi waayo 12 bilood gudaheeda marka qofkaas waxa waa qof dambi galay waa ilaahay ka galay wuxuu u baahan inuu toobad keeno si uu dhaqsaha badan uu gudo. culimo qaarkoodna waxay ku waajibiyaan kafaara xataa inuu ku daro iyo culimo qaarkood ku waajibiyaan si Shaafiiciyada oo kale. marka gabadhan walaasheena oo weli aan soomin waxa leenahay weli waqti ay haysataa ka gaarsiin inta ka gaarsiin kartay ilaahay dambi dhaaf weydiiso ramadaanka soo socda marka dhameys kadib inta ku dhiman gud si uu dhaqsaha badan gud wallahu aalam. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ولا ليال أنه إسلاقنا سيدا أي وذادة عربتو آيادا أفسريان وأي فسرادو ذا هاد بمر أبدليان داو شو ونكسن. وقال بعض أهل التفسير بل الآية محكمة غير منسوخة ومعنى يطيقونه لا يطيقونه فلا من الألفاظ الخفيفة في لغة العرب فلذلك تثبت في نية الحذف وتحذف في نية الإثبات. وعلى الذين يطيقونه قال بعضهم هنا لا مقدرة وعلى الذين لا يطيقونه لا يتحملونه. من أهل العلم من قال وعلى الذين يطيقونه أي الذين يشق عليهم أي يستطيعونه بمشقة وعناء خارج عن المألوف والمعتاد فدية. هكذا قال جماعة من أهل العلم. لكن في تفسير تاني وعلى الذين يطيقونه فدية. إيه التفسير التاني؟ قال وعلى الذين يطيقونه فدية هنا في حرف نفي محذوف القرآن لم يضعه ولكن الرجل العربي اللي هو صاحب الذوق السليم كده زي ما تقول بالفراسة بالبداهة بالذكاء يقول بأن هنا في حرف لا ناقص وعلى الذين يطيقونه فدية أي وعلى الذين لا يطيقونه فدية اللي ما يقدروش عليه اللي مش قادرين يصوموا. طب جبت منين
وعلى الذين لا يطيقونه زودت لا، رغم انك تفتح المصحف ما تلاقيش حرف لا. لكن الفقيه يقول لازم نقدر كلمة لا هنا محذوفة، لأن اللغة العربية بتعطي الحق للمتلقي اللي هو سيادتك. انت المتلقي، جاي لك الخبر، جاي لك النص، فلما تلاقي الكلام كده مش تمام ولازم ينضبط بزيادة حرف أو نقص حرف، تحطه بإرادتك، تضيف في كلام الله ما ليس فيه، حاشا لله. لا، انت بتضيف لي المعنى، لأن انت يا متلقي سيد في فهم النص بالطريقة اللي تشعر فيها بأن دينك كامل وبأن قلبك مرتاح. walaalayaal wadaadadan waxay rabaan inay ga dhaadhiciyaan inay kelmadda laa ay meesha ka maqan tahay oo asalkeedu ay tahay laa yutiiquunahu. laa oo aan meesha ku jirin ayay rabaan inay khasab ku geliyaan. taasuna waxay beddelaysaa macnihii aayadda oo dhan bay beddelaysaa. ahli sunna wal jamaaca waxay yidhahdaan nebigi waxa uu yidhi man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar. qofka been iga sheega, waxay ka hadlayaan xadiis weeye, waa xadiis waxay ka hadlayaan. qofka been iga sheega kursigiisa aakhiro cadaabta meel buu u yaalla. ka waran qofka kitaabka ilaahay wax ku dara ama wax ka jara. waxay yidhaahdeen aayadda yudiiquunahu waxa ka maqan laa yudiiquunahu, laa baa ka maqan. sidaa daraaddeed ilaahay wuxuu ka wadaa halkan qofkii aan kari karin. laa yudiiquunahu, laa baa ka maqan. waxay ku magacaabaan laa almakhfiya, way ka jareen. ilaahay hadduu rabo inuu laa ku daro mayaga ka xikmad badan mise ilaahay wuu ilaaway, waciyaadu billah. waxayna leeyihiin laa baa meesha ka maqan. khasab bayna rabaan si ay ula heshiiso aayaddaasu madhabkooda iyo manhajkooda ayay rabaan inay laa khasab ku geliyaan qur-aanka ilaahay. ilaahayna hadduu rabo inuu laa ku daro wuu ku dari kari lahaa. iyada oo shiicada qaladkoodu aad iyo aad u badan yahay, haddana wadaadka soo socda ee ahli shiicada ah wuu la yaaban yahay sunnada sida ay ugu ciyaarayaan qur-aanka ilaahay ee ay rabaan inaanan kelmad ku jirin ay u geliyaan qur-aanka ilaahay. bal daawada wadaadka shiicada ee la hadlaya wadaadada sunnada. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. من هؤلاء وما معنى يطيقونه؟ هناك كلام يأتي عند بعض المفسرين كلام غريب، يعني الإنسان يتعجب شلون يقولون هالشكل شيء. مثلا هنا هذه الآية وعلى الذين يطيقونه، بعض المفسرين قد يجي يقول المقصود لا يطيقونه. المقصود بكلمة يطيقونه يعني لا يطيقونه، ما يقدرون. ومن يجي إلى قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد يقول المقصود أقسم بهذا البلد. يعني هذه من الأعاجيب أنه آية ما فيها نفي هو يحط لها نفي، آية فيها نفي يقوم يشيله. يعني من كيف يتلاعب بالقرآن هالشكل بالتفاسير. في كثير من التفاسير تشوفون هالشكل حكي لا أقسم بهذا البلد، يقول إيه يعني أقسم، ليش يعني بأي مناسبة؟ إن البيان الإلهي بعد أن أوجب علينا الصوم استثنى المريض والمسافر، وذكرنا المراد بالمريض والمراد بالمسافر. فهؤلاء المرضى لهم أن لا يصوموا بالشرط الذي ذكرناه، والمسافرون كذلك. نعم. وذكرنا بعد ذلك معنى قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين إلى آخر الآية. قلنا إن كثيرا من الفقهاء ومن علماء التفسير قالوا إن الذين لا يعانون لا من مرض ولا من سفر وبإمكانهم أن يصوموا، لكنهم
آثروا أن يفطروا، إذن عليهم الفدية، ففدية طعام مسكين كما قال الله عز وجل. تبين من ذلك أن هنا باري عز وجل يخير الإنسان بين أن يصوم يؤدي واجبا أناطه الله في عنقه، وبين أن يكفر الكفارة التي ذكرها له عندئذ أن لا يصوم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.